magacay waxaa la yidhahaa ayaan shiro raage waxaana ka imid deegaanka Gurceel meel dhahan ka imid oo galguduud gobolada dhexe Soomaaliya xanuunkan wuxuu igu dhacay anigu jira da'da 16 sano sanad 2005 bilowgeedii baan guursaday ilmaan qaaday ilmihi ayagoo soo waxay iga halaabeen 3 bilood markay yihiin oo haddana muddo kadib sanadkaas waxaan qaaday ilmihi haddana way iga soo halaabeen xanuun baan dareemay aniga dhan jirkayga oo idil baa ilaa ciribta ilaa madaxa ugu sareeyo jirka dhan baa wada dikaamay barar baan dareemay meel walba xanuun xubnaha jirka oo dikaama u dibaaxinaya xanuunkaas baan dareemay muddada 2006 markay tahayna waxaan arkay muddadaas kadib waxaa iska bedelay dhiigga caadada oo 2006 garba iga soo baxay xanuunkii baa igu sii saa'iday adiga muddo dheer markaan joogo ninkii qabo wuxuu yiri xanuun baa kugu dhacay jirkaaga igu isbedelay anigana waxaan ahay qof taran iyo awlaad u baahan saas daraadeed ma wada noolaan karno waa iska saxayaa uu yiri waan kala tagnay xanuunku sidii buu yahay jirka dhan ee xanuunay xubnaha ay dibaaxinay meel bararaya qandho joogta xanuun waxaas baan dareemay muddo kadib haddana nin baan guursaday ninkii haddana wuxuu idhahay qofka maxaa kale waa ugu qaldamay qof dumar baan ku maleeyay dib malahan baan dhahay ilaahay baa amarka ii keenay marka sidii baan asagana ku kala tagnay xanuunkan muddadaas dheer buu isoo hayay waxaan soo islaan dhakhtar baan la kulmay waagii dambeeto oo waddanka timid deegaanka Gurceel markii aan la kulmo waxay dhahday waxaan u sheegtay danteedii xanuunkay ahay waxay dhahday waxaa keen hormoons qaldama jirkaagana isbedel baa ku dhacay haddii aad dibadda aadi kartid aad bay ugu tiri anigana waxaan iri dibad ma awoodo reerkana waa reer miyi ah waa reeran waxba haysanin oo maxaan ku raadad waayeelo ah dawladda hore loo dhacay ilmahoodin maxaan ku raadad aabbe ibnihiisan horeba inta badan u dhamaadeen gurina uma shaqeey gabarna uma shaqeyso marka saas baan xanuunkan muddadaas dheer ku yahay wuxuu soo aaday kadib bulshada baa waxay ku samaysay midabta koor tiro badan dhagax tuur faquuq qof aan la noolaadan waaye dhib badan xitaa la ii geystay waan soo cararay kadib waxaan soo aaday xeryaha qaxootiga ee dhaab waxaan ku soo hormaray xeebta dhagaxle xagar dheer markaan imid waan nin abti ah baan ku soo dagay ninka soo wuxuu i keenay abtigay xerada dhagaxley goorma marka xeryaha imaad xeryaha waxaan imaaday 2014 bishii shanaad baan imid haddana bulshadii meeshan ugu imid baa midabta koor iyo dhagax tuur iyo fayl inay ii soo galaan matusa nin iyo naag carruur ilmo meel aan istaago baan waay hay'adda MSF baa igu soo baxday kaar baan helay hay'adda MSF baa igu soo baxday baawar ii keentay oo anu mahad celinaa MSF way maxaan ku inta jada tabarteeda way xanaanaysay way qaaday way soo baartay waxaa maxaan ku la ii keenay UN bay ii gudbisay markii dambe waxay tiri waxa lagaaga ma qaban karo wadamada baaritaanka markii waxay kugu sheegeen baaritaanka waxay igu sheegeen way qaadeen waxay geeyeen meel ifatuul la dhahaayo computer iga soo saareen isla markii haddana la ima daahin gaarisa geeyeen haddana way qaadeen way soo baareen waxay igu soo baareen Nairobi markii kadib waxay dhaheen wax baa gudaha kaaga yaal kuuskuusan waan ku qalaynaa way igu dhaheen ana waxaan maadaama aan xanuunsanahay oo dhibkaasna muddadan dheer uu soo hayay qala si aan dhibka uga baxo ilaahay baa caafimaad ku bixiyay kadib waxay dhaheen waxba aan ka qaban karno malahan mana qali karno UNHCR baan ku gudbinaynaa oo waddanka saddexaad ku gudbin karta hay'adaha dhagaxle joogo dhan baa kiiskay ogaadeen oo dhibka la igu haayay xanuunka yahay waxa dhan bay ogaadeen go'aan bay iga gaareen waxay igu xareen xerada transitka ee UN markay igu xareeyeen UN waxay bishii 8 bishan hadda aan ku jirno bisheeda kale 8 bay MSF soo gudbisay transit baa la igu xareeyay isla markiiba phase 1 iyo phase 2 ilaa bishii 8 sanadkaas baan phase 1 maray haddana muddo phase 2 baan maray sidaan u sugay caawimaadii inay arrinteedii hore u sii socoto
project baa la isiiyey kadib markaan arkay meeshan waxba iga soo soconin oo maxaan ku anigana muddo dheer ku rafaaday oo dadkayga aan ka soo tagay oo ehel iyo qaraabo midna aysan ii joogin meeshan waxaan go'aansaday inaan dadka muslimiinta walaalahay arrinteeda u bandhigto dadka muslimiinta marka maxaad ka codsan lahayd ee adduunka jooga ku daawanaya waxaan ka codsanayaa dadka walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan ummadda Soomaaliyeed iyo inta islaamka oo dhan inta Ilaahay wax sii inay macnaha ay gargaar caafimaad ii fidiyaan halkay kugu soo hagaajinayaan wixii muslimiinta ku helaan shirkadaha ee maxaan ku ka howlgalaan oo Soomaalida oo ku nool xawilaadaha arada dhagaxle xawilaadaha miya xawilaadaha bal telefonka hadaad u sheegto dadka muslimiinta telefonkaygu waxa waa eber 7 20 45 81 eber hal ku celi eber 7 20 45 81 eber hal mar saddexaad eber 7 20 45 81 eber hal marka laba guuradoo soo maray sidaad sheegtay laba jeer ur qaaday baad isbedeshay oo xubnahaadii tarankii kuwa rag kugu soo beermeen oo sida kugu dhacday miya dibkaas Ilaahay baa wax walba bixiya amarkana Ilaahay baa ii keenay qadarta Ilaahayna qeyr iyo shar wuxuu Ilaahay keenay Ilaahay baan ku shukrinayaa dadka muslimiinta ah ama dadka aan rumaysnayn dhibaatada ku haysato oo haysata inay tahay waxyaabo dhalanteeda oo laga yaabo inaan ku baraarugsanayn dhibka ku haysto maxaad ku qancin lahayd dadka walaalaha waxaan ku qancin lahaa kolay aniga waxaan dhaqaatiir baa igu sheegtay oo waxa la iga bar calaamadihiina adiga hadda waa adiga oo u jeeda maxamed baaruuda dadka islaamka kalena kolay inay rumaysan yihiin baan aaminsan waayo way ii jeedaan dibkayga codsigaada ugu dambeeya muslimiinta ugu gudbin muxuu yahay codsigayga waxa waa inay walaalaha islaamka ah inay deeq caafimaad ii fidiyaan wada saddexaad waxaad ku tagi lahayd iyo qarash lagu hagaajiyo walaalaha daawo la yiri Afrika waxba lagaaga ma qaban karo daawadaan ma taalo